eed mid ku ah eedeysane Farxaan Maxamuud Xasan 26 jir ah ina kaaho Cabdi Ibraahim ku dhashay Balad Xaawo waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab. eedda ah Al-Shabaabnimada iyo xilligii uu ku biiray wax dood ah kama qabiyo Farxaan Maxamuud Xasan, laakiin waxa uu ku doodayaa inuu yahay isa soo dhiibe ka faa'iideystay cafiska dawladda. soo dhaweyn uu ka helay deegaanka uu ka soo jeeday ee ah degmada Balad Xaawo kagama falcelin abaal ee bedelkeed waxa uu doortay inuu ka shaqeeyo sidii uu u kala dhantaali lahaa nabadda lagu naaloonayo. waxa uu doortay inuu la wadaago kooxdiisa Al-Shabaab kaartada Balad Xaawo looga dhigi karo mid ka mid ah goobaha ay argagixisada ku dilooto dadka shacabka meelaha ugu sii liita. hadda ma aha meel kale, waa meeshii uu ku dhashay ee soo dhaweysay kadib iska yeelyeelkiisii guracnaa ee ahaa ka soo noqoshada fikirka gaalaysiinta, dilka iyo isdilka inta kale ee habdhaqanka u ah Al-Shabaab. markhaatiyaal ka tirsan ciidamada aan muuqan ayaa helay fariimo uu la wadaagay Al-Shabaab ee ahaa macluumaadka gaarka ah ee ciidamada nabadgelyada Balad Xaawo. waxay sidoo kale ogaadeen fariimo lagu farayo habdhaqanka uu degmada ku joogayo. maxkamadda ayay u sheegeen sida ay ugu suura gashay in ay iska soo dhex saaraan dhagarta Farxaan. xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jenaraal Cabdullaahi Buule Kamey ayaa fadhigan maxkamadeed ka sheegay in Farxaan Maxamuud uu ahaa laba wajiilo ku qanciyay horjoogihiisa isku dhiibada dawladda si deegaankiisa oo ka badbaada ficilada wuxuusnimo ee argagixisa oo u noqon lahaa hab isaga loo isticmaalo. waxaa noocad in eedaysanu uu yahay nin khatar ah oo ummadda khatar ku ah oo isticmaali kara wajiyo badan. waa ninka awooday asagoo shabaab ah shabaabku ay u doorteen inuu ciidanka dawladda dhex galo isoo dhiibo ka dhigo oo iska dhigo oo ka dhex shaqeeyo kadibna ciidankii dawladda uu hogaamiyo oo uu ku hogaamiyay meel khatar u taalo oo shirqool ah. waa nin khatar ku ah bulshada, waa ninka awooda inuu laba waji isticmaalo. wuxuu khatar ku yahay ummadda Soomaaliyeed. sidaa darteed maxkamadda sharafta leh waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay lagu xukumo. wabillahi tawfiiq. Garyaqaan Ismaaciil Xalane abukaataha u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda u sheegay in Farxaan yahay isa soo dhiibe ee uusan ahayn nin qarsan, sidaas darteedna la baabi'iyay eedda xeerlaalinta. Farxaan inaan lagu eedeynin qodobka ah inaan lagu xukumin qodobka ah 221 ee ku soo eedeeyeen xafiiska xeerlaalinta maadaama uu yahay isa soo dhiibe. maxkamaddu waxaan ku codsanayaa Farxaan inay u fiiriso qodobka maxay 222 oo ah dambi ku waayid marka muujintii meesha la keenay iyo marqaatigii meesha la keenay maadaama aysan iswaafaqaynin mudane gudoomiye garsooryaal waxaan codsanayaa in Farxaan la siiyo xorriyadiisii sabab loo cuskanayo qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya kaasoo ah dambi ku waayid. maxkamaddu waa mahadsantahay. Shaala Sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed. dhageysiga garmaqalka lidka ku ah eedeysane Farxaan Maxamuud Xasan intaas ayuu ku egyahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Balad Xaawo.